بسم الله الرحمن الرحيم مالون أحسن marka laga hadlayo warbaahin waxay warbaahin u tahay ama ay cod u tahay ma aha inay sheekada maalintaas taagan oo kaliya ay dadka la wadaagto laakiin waxay warbaahintu cod u tahay waa inay wax bedesho waa inay aragtida dadka bedesho una soo gudbiso sheekooyin iyo waxyaabo dadka ku riixaya in isbedel la aado oo xaaladda markaas lagu jiro waxaan ahayn loo gudbo ama si un dhaqaaq u yimaado tusaale waxa kuugu filan waxaad ogtihiin Gaza maalmahan waxa ka jiray baahi baa la sheegayay maadaama la go'doomiyay sidaa daraaddeed warbaahinta caalamka waxay suubiyeen olole looga hadlayo xaaladda laga jiro sidoo kale ururada wariyaasha adduunyada qaybtooda oo aan xubin ka ahay waxay sameynayeen in waraaqo petition la saxiixo si wariyaasha Gaza ka shaqeeya culayska looga yareeyo laakiin Soomaaliya waxaad moodaa ama warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha waxaynu noqonay dad tabiya oo ka shaqeeya ama ka shaqeeya inaan ka warrano waxa maalintaas dhacaya xaflad ba halka lagu qabtay shir baasaas siyaasi hebel baasaas hebel ba hebel u jawaabay laakiin scenario anaga naga imaaday iyo wax xafiisyada tifaftirka ka imaaday oo u ololeynaya isbedel bulsho ma suubino warbaahinta ugu dhow oo sidaas suubisa in bulshada wax meel u loo riixana waa midda joogta meesha la yiraahdo Somaliland hadda koonfurta dalka iyadu waaba ogtihiin oo eed ma leh oo xogaa culays amni baa ka jira laakiin misana saas oo tahay warbaahintu way dadaalaan oo markay noqoto arrimaha bulshada deegaanka waxaas oo dhan waxbay ka dhaxan oo hadda dhaliil xoogan ma jirto laakiin meelaha qaybtood oo aad dareemi kartaan nabadna ah warbaahintoodu ma abuuraan sheekooyin nolosha bulshadaas ka hadlaya oo isla xisaabtan abuuraya oo meesha laga yimid iyo meesha loo socdo dadka u tilmaamaya oo su'aalo keenaya doodo bulsho abuuraya meesha ugu daran hadda is leeyahay Soomaaliyana way ka mid tahay su'aasha way dul hoganaysaa waxay tahay Puntland hay'adaha warbaahinta beeskoodu ay Puntland yihiin ama wariyaasha halka jooga ma aqaano waxa goonida ah oo saaran mid waa fahansanay mid aan fahansanay waxay tahay in mujtamac halka degan uu yahay dad conservative ama mujtamac muxaafid ah oo aan rabin in dhibaatooyinkooda laga hadlo madaxdoodana farta lagu fiiqo taasuna waa mid dhaxal siisay meesha ay joogaan dadkaas 27 sano iyaga oo maamul ahaa oo ismaamul lahaa oo dawladda Puntland halka ka jirtay laakiin maanta waxaan rabaa inaan ku qoobsado fariinteyda warbaahintu waxay warbaahin u tahay oo shaqooyinkeeda muhiimka ah kamid ah waa inay aragtida bulshada bedesho laakiin ma aha inay la noolaato xaaladda bulshadu ku sugan tahay maalintaas maalin wanaagsan